nin nin caabid ah oo sheekh ah oo caalim ah ayaa waxa ay daris ahay nin Yahuudi ah. Ninkii caadadiisu waxay ahayd inuu ku saliyo xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam mar walba. Ninkii Yahuudiga waa uu la yaabay. Markaas wuxuu ku yiri maxaad ugu salisaa mar walba nabigiina. Ninkii sheekh ahaa wuxuu ku yiri kurbada ay iga feedaa hami walba aan leeyahayna way i rumaysaa. Markaas ninkii Yahuudiga waa uu fikiray wuxuu damcay inuu daban u dhigo oo diintiisu ka fasaadiyo ninkanita sheekh ah. Marka wuxuu ku yiri faraanti fargal ayuu u dhiibtay wuxuu ku yiri safar ayaan aadayaa fargalkaanayta ii sii hay. Ninkii sheekh ah wuxuu ku yiri mar walba waxaan ku bilaabaa shay walba inaan nabiga ku saliyo sallallahu calayhi wasallam. Safarkii ayuu ka soo laabtay markuu yimid sifa uu asagana fargalkiisa u qaato ninkii sheekh ah. Markuu yimaaday ninkii Yahuudiga ahaa ninkii sheekh wuxuu ku yiri waa inaad maanta nala qadaysaa aan ku casuumnaa kadib fargalkaaga ku siina waad bixi. Kadib wuxuu u ogolaaday wuxuu ku yiri waayahay. Ninkii sheekh ahaa fargalkii ayuu raadiyay waa uu waayay. Qadadii iyadoo la soo diyaarinayo ee xaaskiisii wanaagsaneed ayaa u caday ninkii sheekh ahaa. Waxay ku tiri kalluunka aad maanta badda nooga soo qaaday waxaan ka dhex arkay fargalkan. Waa uu naxay waa uu booday dhanka fargalku aaday ugu soo qaaday. Ninkii Yahuudiga wuu soo laabtay marka wuxuu ku yiri ninkii Yahuudiga asagana dabin u watay wuxuu ku yiri maxaa kugu dhacay maxaa wajigaaga u bedelmay ma fargalkaygii ayaad waysay maanta dadka ayaan hortooda kugu ceebeynayaa ee fargalkayga aaway. Maanta diintaadii adig waan ku ceebeynayaa fargalkaygii aaway. Fargalkii ayuu u soo bixiyay wuxuu ku yiri fargalkaaga waa kan ahoo. Ninkii Yahuudiga waa uu naxay wuxuu ku yiri xagee ka keentay Allah waa fargalkayga xagee ka keentay. Wuxuu ku yiri miyaad waalan tahay soomay aadan ii dhib inta aadan safarka aadin oo ii sii hayso mii dhihin. Ninkii Yahuudiga waa uu naxay waa uu dhacay inuu isku darsamay. Sheekh ayaa wuxuu ku yiri maxaa kugu dhacay oo maxaa ku daaray. Ninkii Yahuudiga wuxuu ku yiri fargalkaanayt markaan ku dhiibtay waxaan rabay inaan ku fasaadiyo aan dad hortooda aan badda ku dhex riday. Ninkii sheekh wuxuu ku yiri adiga midaas ayaa la yaaban tahay anigana fargalkaanayta meeshii aan dhigay waan ka waayay. Maanta subaxdii anigoo badda iska aaday oo nabiga iskaga salinaya kalluunkan ayaa agteyda soo maray waan soo qabsay xaaskayga u keenay waxaan ku yiri qada nooga samee maanta. Xaaskaygii fargalkii ayaa waxay ka dhex aragtay malaygii kalluunkii. Markaas wuxuu ku yiri alxamdulillaah Ilaahigii fargalkii adiga aad badda ku dhex riday oo malayga soo cunay anigana malayga agteyda soo maray maanta aan karsaday aan ka dhex arkay. Allihii sidaas iigu naxariistay alxamdulillaah wuu yiri. Ninkii Yahuudiga ahaa bartaas ayuu ku soo islaamay. Horaan wuxuu lahaa diinta ka fasahaadi oo wuxuu sheegay been ka dhig.